xarumaha kala duwan ee jaamacadda Al-Hilaal ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaa maanta arday oo dhigta kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda waxaa loogu soo gabagabiyay imtixaanka finaalka ee sanadlaha ah. intii uu socday imtixaanka oo ardaydu ay ku galayeen xarumaha kala duwan ee jaamacadda waxa kormeer joogto ah ku hayay mas'uuliyiinta jaamacadda iyo waliba maamulayaasha kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Al-Hilaal. Cabdullaahi Abshir oo kamid ah guddiga imtixaanaadka ee jaamacadda Al-Hilaal ayaa ka hadlay ardadan maanta loo soo gabagabeeyay imtixaanka finaalka ah ee sanadlaha ah ee jaamacadda Al-Hilaal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. magacaygu waa Cabdullaahi Abshir Cabdiraxmaan Cali oo ah horjoogaha kulliyadda dhaqaalaha iyo culuumta maamulka ahna madaxa guddiga imtixaanaadka ee jaamacadda Al-Hilaal. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku mahadsan inoo soo gabagabeeyay maanta oo taariikhda ay ku beegan tahay 18-ka imtixaankii noo soo bilowday 7 bisha koowaad 2019. ardayda waxay isugu jiraan kuwa full time ah oo 5 maalmood wax barta iyo kuwa part time oo 2 maalmood kaliya wax barta ee khamiis iyo jimco. qolada full time ka imtixaanka wuxuu u bilowday 7 bisha koowaad 2019 wuxuuna soo gabagaboobay 16 bisha koowaad 2019. qolada part time kana wuxuu u bilowday 10 bisha koowaad 2019 ilaa wuxuu socday 18 bisha koowaad 2019. run ahaantii waxaa juhdi weyn ku bixiyay dhammaan maamulka jaamacadda Hilaal gaar ahaan guddiga imtixaanaadka ayaa ku mahadsan kuwaasoo runtii juhdi weyn ku bixiyay sidii imtixaankaas uu u socon lahaa iyo habsami socodkiisa iyo diyaarintiisaba. sidoo kale waxaa qayb weyn ka qaatay aan halkaan ugu mahad celinaynaa dhammaan macallimiintii ardayda wax u soo baraysay tan ilaa iyo sanadkan kuwaasoo ayagana ku qornaa xagga ilaalinta imtixaanaadka iyo nidaamkiisa iyo soo ururinta imtixaanaadka. sidoo kale waxaa ka qayb qaatay madaxa akademiyada ama waxbarashada ee jaamacadda Al-Hilaal Ustaad Maxamed Isaaq. sidoo kale mahad weyn ayaan ugu mahadinaynaa sidoo noo caawiyay ee nooga caawiyay xagga nidaamka ee gelida imtixaanaadka. juhdi weyn kadib iyo rafaad badan oo loo soo maray imtixaanaadkii maanta waxaan taaganahay inaan soo gabagabayno imtixaankii noo soo bilowday 7 bisha oo aan maanta ay soo gabagabeynay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ku mahadinaynaa. qaar ka mid ah ardayda jaamacadda Al-Hilaal ee 2 isbuuc ee la soo dhaafay u fadhiyay imtixaanka ayaa ka hadlay sida ay ugu faraxsan yihiin in maanta imtixaanka uu soo gabagaboobo iyagoo sidoo kalena rajo wanaagsan ka muujiyay inay heer fiican gaari doonaan. Alxamdulillah wa salaatu wasalaamu ala rasuulillah wa ba'd. magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Daahir oo dhigta jaamacadda Al-Hilaal gaar ahaan kulliyadda dhaqaalaha Department of Accounting. runtii saakaalka waxaan ugu soo gabagaboobay امتحانكي فينالك ahaa semester 7 بعد شدة وتعب soo jeed dheer kadib semester 7 saaka sugatinay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo kaliya 7 oo sadkaagi isuuntii macaanka si kastoo ay ahaataba saaka salaam waan assalaamu calaykum. magacaygu waa Ifraax Xuseen Maxamuud dhigata jaamacadda Al-Hilaal kulliyadda Economic and Management Science Department of Accounting. maasha Allah aad aan ugu faraxsanahay inay ii soo gabagaboodo imtixaanka semester 7 oo intaas oo dhammaan soo wadnay. maasha Allah halka waxaan ka salaamayaa madaxda jaamacadda maamulaha guud dhammaan macallimiinta ardayda bahda Al-Hilaal halkan baan ka salaamayaa. jaamacadda Al-Hilaal ayaa kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho waxaana laga bartaa kulliyado kala duwan iyadoo jaamacaddu u taagan inay sare u qaado aqoonta ardayda Soomaaliyeed ee ka soo qalin jibisay dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Muqdisho.